عدل لقى من بيربين تبقوا عودي واحداي صومالي ذا عاد حني يقوم عيدين وعن ونكسن أخيرته هوده نقل حرير إسايا هالكني هو أمستردام هويغا سوماليدو هولند أود كلا سعوتان FM-ta 99.4 MHz iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay dalmar.org waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii sportiga oo uu caawa marti inoogu yahay mid ka mid ah xidigihii kubadda cagta ee Soomaaliya una ciyaari jiray gobolka Banaadir waa Maxamed Cali Xaaji oo ku magac dheer Muslimiin Maxamed ayaa nagu soo booqday studio-gayga magaalada Amsterdam ku soo dhawaada barnaamijka oo inoo daadihin doono Nuruddin Ebo waa kan barnaamijkii iyo Nuruddin mahadsanid habeen wanaagsan aqayaartana dhageysatooy idilkiinba sida aad u dhantihiin waxaa caawa marti inoogu ah studio-gan Amsterdam Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano Muslimiin waxa uu ku dhashay 1962 magaalada Muqdisho waxa uu waxbarashadiisa hoose iyo sare ku dhamaystay isla magaalada Muqdisho waxa uu safka hore kaga jiray naadigii caanka ahaa ee Muqdisho waxa uu bartanka amaba dhaxda kaga jiray ciyaartooygii caanka ahaa ee naadiga soo maray kuwii ugu magac dheeraa bin Shaakir Shiiqaalow Kulu Nuurgaab iyo geela iyo gibilay oo difaac ah ayuu ku jiray caawa waxa uu marti noogu yahay studio-ga asaga oo ka yimid caariga Mareykanka ayuu ku nool yahay hadda su'aasha ugu horeysay aan ku weydiinayo Maxamed Muslimiin waxa ay tahay goormaad bilowday sidee aad ku bilowday ciyaaraha yaraantaadii nooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamaa bahda idaacada caawa igu martiqaaday meesha midda kale ciyaaraha waa ciyaarta kaliya aan ugu jeclaay adduunka ilaa iyo haddana balwad ii ah anoo awoowa noqday oo aan weli ka fariisan da'yaraan ayaan ku jeclaa kubadda oo aan ku soo bilaabay 9 jir haddii aan dib u xusuusto maadaama su'aashaas la weydiiyey koox aan aad u jeclaa oo dhallinyaranimadayda aan ku soo bilaabay xaafadda Laba Dhagax kooxdaasoo la yidhaahdo Al-Huda oo aan ka bilownay xaafadda dhexdeeda taas ayaa igu horeysay oo aan ka soo bilaabay oo aan filaayo ragga qaarkood hadda inaan xusuusan karin xataa ragga aan wada ciyaari jirnay oo ka mid ahaa Cumar Caraale iyo Cabdikuus Cabdulaahi Ciise Nagnaag Cali Xuubey dhalinyaro aad u fara badan Ismaaciil Colow kadib waxaa igu xigtay dugsiga hoose dhexe Maxamuud Xarbi inaan ciyaaro tartankii dugsiyada dhexe meel fog baan ka soo bilaabay bahasha aadna waa u jeclaa marka waxaa igu xigtay dugsiga sare Janal Daawud oo rag badan oo markaas yare ahaa hataa aan ku wada ciyaarnay markii aad ka soo gudubtay dugsiga sare iyo xaafadaadii Xamar Jadiid waxa aad ku biirtay naadiga Muqdisho sidii aad ugu biirtay iyo ciddii ku geysay ma nooga warrami kartaa Maxamed Muslimiin si fiican arintaas meel qurux badan ayay laabteeda ugu qorantahay waayo anoo ku ciyaarayo koob Ramadaan uu ka jiro ceelgaabta ayaa nin Difoso Minishibiya ah oo macalinkana kaaliyo uu ah ayaa meeshii ugu yimid anoo dhalinyarada Laba Dhagax koobkaas kala qayb galaya ina sheegay warniyo wuxuu yiri laacib fiican baa tahay waxaan rabaa inaan ku geeyo kooxda Minishibiyo anoo maamada ka baqaaya Allah u naxariistay oo kubaddana aad madina waa aad ay maamada xoogaa u necbeed marka waxa warniyo aniga xoogaa waana da'yarahay waa 17 18 u dhaxeeyo marka wuu iga xoog badi calaa ay xaal ninkaas ayaa meesha igeeyay Difoosaha ahaa oo magaciisa hadda aan saas u xusuusan inuu nool yahay inuu dhintay xataan kala ogeyn maadaama la kala firdhoomay markii aan naadiga Muqdisho tagday oo uu ku geeyay yaa kugu soo dhaweeyay ma xasuusataa macallinkii ugu horeeyay ee gacanta kugu dhigo si fiican macallinkii ugu horeeyay gacanta ugu dhigo wuxuu ahaa Allah u naxariistay macallin Cumar Maxamed Axmed macallin Cumar Cagaweyne oo ah macallin aad qabiir ugu ah kubadda cagta oo aan si fiican uga faa'iideystay yaraanteedii ilaa iyo hadda waxyaabaha aan isticmaalo aan asaga ka dhaxlay waxaad u cayaartay sida taariikhdaada aad noogu sheegtay mar hore mar aad ii warramaysay in aad u cayaartay gobolka Banaadir ma isla naadigii Muqdisho aad ku biirtay oo aad heerka koowaad u cayaartay
ayaa kuu gudbiyey gobolka mase adiga caadi u tegey bal nooga waran arrintaas gobolkii banaadir ee xiisaha badnaa. gobolka banaadir waxaa laga xulaa, waxaa la sameeyaa 10 naadi ee waaweyn oo seeri aada ah ayaa waxay samaystaan 10 naadi yaryar oo seeri B ah. tartankii seeri B'da ayaan ka qayb galay oo markaas aniga kabtan aan ahaa, aan tiimka hogaaminayay oo aan ku harnay nasiib wanaag semifinaalka rigoore. macalinka ayaa wuxuu noogu bishaareeyey 6 anaga ka mid ah ee ka mid ahaayeen maxamed siidow iyo muxsin iyo bilqeer, cumar axmedey jeelo colow. waa inta aan xusuusto. maxamed siidow sidoo kale noogu bishaareeyey in aan ka qayb gali doono tartanka 8aad ee ciyaaraha gobolada oo aan matali doono naadigeena Muqdisho. cayaaraha gobolada sidii aan la soconno aad bay u xiiso badnaayeen. sanadkii cayaartana waa 1980kii. heerkii aad ku harteen iyo kaalintii aad ka gasheen ma xasuusataa? si fiican ayaa u xusuustaa, waayo kubadda cagta aad baan u jeclaa in aan heerka gaaro oo intaasoo malyan qof ay fiirsato. marka tartankaasi aad buu u fiicnaa. markii aad fiiriso shakhsi ahaan ciyaartooyda aan ka koobnayn, laacibiin aad fanaaniin u ah ayaan wada ahayn. xoogaa farsamo ka timid dhinaca maamulka iyo macalinka ayaa horumar ku gaari weyna. semifinal xataa ma soo bixin. dhib ayaan waxaan kaga soo baxnay jowhar. muqdisho markii la yimid wareeggii horaa ku harteen. wareeggii horaa ku harnay. rag yaryarna waa ahayn. haddana labada ciyaar ugu darneed Kismaayo waxaan ugu aaday iyo Hargeysa. macalinka waday allaha u naxariistee waxa uu ahaa Jimcaale Maxamed Xaayow oo qayb ka lahaa isboortiga heerka aan ka gaaray Nuurudiin ahaan. adiguna waad eedaysay. eedeymihiisii maxaa ka mid ah allah u naxariistee dhinaca tiknikada? islamarkaas sanadkii ka horreeyey ee 1979kii koobka way ay qaadeen ayagoo aan muddo qaadin oo ugu dambaysay 70meeyadii horraanteedii. wallaahi nuur eed gaar horta macalinka aniga u soo jeedinaan ma jiro. annaga cilad waxaan qabnaa macalinka waxaa ka awood badan guddiga ciyaaraha maamulayo. guddigeena waxay ku xun yihiin soomaalida ah kubad maamula haddii la yidhaahdo waxay fargashtaan macalinka. line upka macalinka ayaa xur u ah, xulashada macalinka ayaa xul u ah. waa tan weli socoto oo uu maalin dhoweed ka hadlay macalin Ibraahim Suudaani oo horseed macalin u ahaa. faragelin guddiga ayaa jirto. aan taasi kaga gudubno, macalinka waxaa farageliyey guddiga, welina way socotaa. su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay gobolkii markii uu soo dhammaaday ma naadiga heerka koowaad ayaa hore lagaa safay mase muddo ayaad sugaysay sidii aad ku gaari lahayd heerka koowaad ee naadiyada dalka? nasiib wanaag nuur eebo, isla markii aan ka soo baxnay ciyaarihii gobolada 6deena ciyaartooy ee dowladda hoose ka tirsaneed, isla markii macalinka xerada ayuu nagu xareeyey. waa markii ugu horeysay gobolka ka soka ah xera aan galo oo iskoolka form 3 ayaan maraya malaynaya. markaas iskoolka xagga ayaan ka aadi jiray. 6deena wuxuu noogu bishaareeyey inaan u diyaar garowno horyaalka qaybtiisii. waa la joojiyey, dhex ayuu maraayey. isla markiiba nasiib wanaag muxsin ayaa iga horeeyey hal maalin, anaana ku xigsaday laacibiinteena intii 6deena ugu horeysay. markiiba waa lagu qaatay. macalinkana waa uu ku soo dhoweeyey. waa macalin caan ka ah oo weliba haysto waxbarasho dibadeed. waxauna safka ka hore kaga jiray allaha ugu naxariistee macalimiintii ugu fiicnaa. bal nooga waran barbaarintiisa iyo sidii aad isku aheedeen macalin Cumar Jeeste allaha u naxariistee. allah u naxariisto. macalinka wuxuu ahaa nin aad qabiir ugu ah ciyaartan kubadda cagta oo koorsooyin iyo seminaaro badan dibadda ugu qayb galay. ani si aad ayaa wuxuu u xigsan jiray dadka waxbarta iskoolka dhigto. ilaa iyo dhowr qof high school aadeynay, orso kala ku jiro jaamacad meesha ka aadayay. marka wuuna la sheekaysan qayb gal dhan noogu sheekayn jiray wixii life aniga aan u arkayna dee tababarkiisa aad ayuu u fiicnaa. ilaa ay hadda maadaama aniga hadda aan heer macalin aan gaaray, koorsooyinka aan qaatay badanaa waxaan ku dabaqaa baractiskii asaga uu na siin jiray. yaraanta ayaan ku bilaabay waxyaabaha qaarkood inaan markaas qorto. macalimiinta Soomaaliyeed kuma ayna fiicneen sidii wadamadan horumaray Yurubka ee aanu joogno. cayaartooyda markii ay waxbarashada iyo iskoolka ku jiraan waxaa la weydiiyaa mustaqbalkooda. macalin may doonayaan ma inay saxaafadda ka hadlaan oo isboortiga bartaan? intaba waa loo jeediyaa. macalin Cumar Jeeste maadaama uu ka mid ahaa macalimiinta ugu ilbaxsan ee bannaanka wax ku soo bartay, midinku dhiirigeli jiray inaad saxaafadda aadaan, inaad macalinnimo mustaqbalka aad samaysaan? wuxuu nagu dhiiri jiray maadaama professional aan rabno inaan noqono, in kubadda si fiican macnaha aan u barano. mar walba traininka aan iska ilaalino, respect each other, oo qof walba laacibka kaa horeeyey aa respect siiso, kan kaa dambeeyena adiga uu respect ku siiyo. iyo maqalka macalinka number 1 waxaa ah traininka habka u sameynaysid macalinka sida uu kugu diro inaad wax u qabatid.
markaas ayaa anigana jeclaa markii xoogaa aan ka culusaado ciyaaryahanka inaan macallin noqdo